Gabriel Mugabe, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God. madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe waxa uu ahaa nin caan ah waxaana uu xukunka ka digay isagoo aad u da' oo 90 jir ah wuxuu lahaa qoraayo iyo xikmado marka qaar qosol badan leh wuxuuna dalkiisa ka talinayay muddo ka badan 30 sanadood ninkan waxa uu ahaa ninka ugu aqoonta badan madaxda qaaradda Afrika waxa uu ka baxay ilaa iyo 6 jaamacadood waxaana uu ku hadli jiray luqadaha far badan wargeysyada dalkaas ka soo baxa iyo waliba warshadada caanka ee dunidu waxay ka qoreen qoraayo xikmad badan leh oo qaarkood qosol badan leeyihiin waxaana wargeyska New Zimbabwe ka soo baxa dalkaas Zimbabwe uu qoray in ka badan 18 xikmadood oo laga soo wariyay Robert Mugabe wuxuu yiri waxaan la hadlayaa dumarka iyagoo la qabo sawirada qurxoon soo dhigaya Facebook wuxuu si raaciyay walaashay weligaa ma aragtay alaab la iibsaday oo haddana la xayeysiinayo Mugabe waa sii socday oo wuxuu yiri haddii dawladuhu make-upka ay mamnuuci lahaayeen caruur badan ma aysan aqoonsan lahayn hooyadood waxaana uu taa ula jeeday in make-upka uu wax badan ka bedelay dumarka oo hooyada markii hore sidii ay ahayd iyo markii ay qaadatay make-upka oo ay marsatay ay kala duwan yihiin waa uu sii hadlay wuxuuna ka hadlay isagoo leh haddii aad rabtid inaad ogaatid dhibaatada ay leedahay halkaas mobilkaaga dhammaan heesaha ku jira iska tirtir ama delete garee marka laga reebo hal heesta mar walba dhageyso ma u heli lahayd wax xiiso ah dhageysiga heestaas macnaha waxa uu ka waday haddii mobilkaaga aysan ku jirin heeso kala duwan hal hees oo kaliya ma dhageysan kartid marka wuxuu la jeeday halkaas raggu kuma eegaan karaan sida uu isagu lahaa Mugabe waxa kale uu ka hadlay oo yiri guurku waa wax ragga u macaan guriga ayaad soo gashay cuntadii yaad sugtay waa lagu kariyay waad cuntay kadibna qoftii cuntada ku keentay ayaad haddana weli wax ka sii raadinaysaa macnaha waxa uu ka wada oo yiri haweenka guriga marka ay joogto hawl badan bay qabataa wax badan bay ku samaysaa haddana weli waxbaad ka sii raadinaysaa macnaha Afrika haddaad aragto nin iyo xaaskiis oo guriga banaankiisa fiiskii ku leeysanaya hamoodin romantic wax kale ma waa laba qof oo wada fadhiyo oo kaliya macnaha waxa uu leeyahay ha u moodin in wax walba ama laba qof oo kasta oo isqaba oo wada fadhiya ay romantic wada fadhiyaan wax un baa ka qaldan waxa kale oo Mugabe xigmadiisa ku jira hablaha ka weyn 25 jirka Valentine Day ama maalinta jacaylka uma dabaaldegi karaan sababtu maxuu ku sheegay da'dooda dartiis waxay u dabaaldegi karaan maalinta Women's Day maalinta haweenka macnaha waa dad weynaaday oo dhalinyaro waa soo gudbeen waxa kale oo sheegay ha guursan haweeney garoob ama carmal ah oo ilmo wadata waayo ayuu yiri wili lama arag ciyaar hal gool iyo eber ku bilaabantay mana ciyaar aan la ciyaarin ba oo hal gool la sii dhaliyay waa ciyaar bilow ama aha ayuu ka wadaa waxa uu yiri haddii ay gabar dal kale ku tiraahdo ama gabar dal kale u dhalatay ku dhacdo idhunko si fiican u dhunka ayuu muxuu ku sameeyay waxa uu yiri maxaa yeelay waxaad matalaysaa dalkaaga oo dhan Mugabe waxa kale uu soo qaatay haddii ka warna aad mar walba aroos ka qayb gashid oo aad weligaa tahay qof aan guursan oo single ah wuxuu yiri aba kama duwanid hoolka arooska lagu qabto oo hoolkaas la mid tahay adiga mar walba Robert Mugabe waxa ka hadlay gabdhaha dhashay 1990kii ayuu yiri walina aan la guursan waxaan xusuusinayaa 2020 inay santo jir noqonayaan marka iska sii wata su'aashiina nacasnimada ah sida halkee ku nooshahay lambarkaaga
yaa ku sii lambarkee macnaha waxa uu ka wadaa gabadha waxay ku habboon tahay in ay waqti fiican oo da'deeda ku habboon ay guursato laakiin haddii marba 30 jir ay dhaafto waxay la soo baxdaa oo ay markaas guursan hadallo aan laaqi ahayn iyo shukaansi aan dhammaad lahayn macnaha haddii ay isguursadaan kalkaaliso iyo dhakhtar maxay iska dhalayaan oo isweydiiyey wuxuu ku jawaabay waxay iska dhalayaan bukaan ay iska dhalayaan sababtoo labadoodii ayaa midna dhakhtar yahay midna kalkaaliso waxaa soo qaatay guur la'aanta oo ka hadlay haddana xikmad kale ka sameeyey wuxuu yidhi haddaad guursato gabar dhowr iyo 30 jir ah waxaad ka dhigan tahay adoo joornaalkii saaka soo baxay fiidkii soo iibsaday macnaa joornaal dhacay oo saaka oo dhan dadka soo akhrisanayeen ayaad soo iibsatay fiidkii oo adiga kula cusub taasna waxa uu ku duray haweenka garoobada ah waxaa soo qaatay digniina wuxuu yidhi Afrika digniinta kaliya ee laga cabsado waa baterlowga qofka wax kale kama warwaro wuxuu ka warwaraa telefoonka inuu bateriga ka dhaco ama baterigu eberka yahay sababtoo ah informationka ama xogta meelaha uu ka raadsada ama looga soo diro oo waxa kaliya u soo martaa waa telefoonka marka telefoonka haddii dab ku dhaco qofka waxay ku noqonaysaa walwal waxa soo qaatay oo yiri haddii ka hortimaado gabar uur leh ha ku qosin sababta wuxuu yiri ayadu uur bay leedahay laakiin adiga ma ogid inaad dhali doontid wuxuu sheegay markaas oo yiri haddii aad aragto gabar uur leh ha ku qosin ee adigu istijaabi marka hore inaad dhalaysid gabdhuhu la hadlay mar kale wuxuu yiri walaashay inaad nin hanti leh shukaansato kama dhigna inaad hantiila tahay xiriirkiina oo dhammaada ayaa xaaladaada ka dhigi kara sidii telefoon start loo diray macnaa marka ay saaxiib la tahay nin hantiila ah macnaha inay isku wada tiiriso ma aha waxaa dhici karta in xiriirku xumaado kadibna ay gabadhii meel cidlaa ku soo dhacdo macna wuxuu yidhi ragga inay asturnaanta jecel yihiin waxaa daliil u ah waxaa la guursan waayey gabdhaha ku soo bandhiga jirkooda baraha bulshada macnaha wuxuu yidhi ragga wuxuu ka wadaa waxay jecel yihiin ragga asturnaanta sababtoo ah haddii aysan jeclayn waxay boobi lahaayeen ama guursan lahayn gabdhaha baraha bulshada iyagoo qaawan soo bandhig haddaad aragto haweeney markii hore sawirro ama muuqaallo baraha bulshada aan soo dhigi jirin oo markii dambe bilowday inay saacad muuqaaladeeda u soo bandhigto waa la soo furay oo weyniye jabsan tahay mahmahaas waxaa laga hayaa ama xikmadahaas waxaa laga hayaa madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe xikmadahaas iyo kuwo kale waxaan idin soo gudbin doonaa maalmaha soo socda nala socda I, Robert Gabriel Mugabe, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God.